السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا بيشكيغا يوتيوب channel كيغا كحرن وإذن وذا سلامي waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo cashirkii ah wada sugayseen oo ahaa upper limb muscles qaybtan waxa uu hadlayaa part 1 upper limb muscles qaybta kale insha Allah taala waan dhameystir doonaa oo ah forearmka iyo armka laakiin hadda waxaan dhigi doonaa insha Allah taala upper limb muscles si qaybta sare oo ah shoulderska iyo humerska muscleska laga helo waxaan ku qaybinaa ku magacyadooda ku jiro major and minor meeqa magacyadooda ku jirto major and minor okay waxa major and minor ku jiro pectoralis major macna m-tan capital oo Soomaali major waa m-tan small waa minor ay noqon marka pectoralis major pectoralis minor rhomboid major rhomboid minor teres major teres minor okay waxaan kala qaybinaa hadda qoladan waxa leenahay rear major and minor meeqa major ah meeqa minor ah okay waxa leenahay laba isku xiran yihiin waa saddex meelood oo laba ah pectoralis major pectoralis minor rhomboid major rhomboid minor teres major and teres minor okay waxa leenahay marka hadda waxa kala qaybinaa hadan kan laba murqo waxa jirta spinatus iskala ah okay laba spinatus jirto maxay kaliin supra iyo infra waxa leenahay supra spinatus infra spinatus hay waxa ku soo haray waxa jiro rear brachialis magaca brachialis ku qaadanayo waa saddex ayana waxa biceps brachialis and coracobrachialis and brachialis okay biceps brachialis coracobrachialis iyo brachialis triceps kaligiisu taagan yahay deltoid muscle kaligiisu taagan yahay trapezius kaligiisu taagan yahay latissimus dorsi kaligiisu taagan yahay okay marka intaas kaligooda taagan waa arki doonaa kood hore waxaan sharxi doonaa rear major and minor rear spinatus and rear brachialis aan ka hadalno pectoralis major iyo pectoralis minor okay pectoralis major xagu ka yimaadaa xaguna ku dhamaadaa origin iyo insertion aan ka hadlaynaa macnaha origin waxaan kasoo gaabinaynaa o okay insertion waxaan kasoo gaabinaynaa I okay waxaan leenahay origin meeshaas oo ka yimaaday insertion meeshaas oo ku dhamaaday soo muhiimsan okay pectoralis major meeqo kasoo origin garooba number 2 waxa leedahay sternum originkiisa koowaad waa inta ka yimaada sternum wajida 2 labo medial two-third of the clavicle medial two-third inta ku egta lateral one-third bilaabana samahan iyo upper six costal ribs okay lixda rib ee ugu sareyso 1 2 3 4 5 6 okay intaan muko kasoo oranji garoobo xaqu ku dhamaanaa marka waaya wuxuu ku dhamaanaa pectoralis major inta kasoo oranji garoobo number 2 wuxuu kasoo oranji garoobay sternum labo wuxuu kasoo oranji garoobay clavicle 3 wuxuu kasoo oranji garoobay upper 6 costal cartilage ayuu kasoo oranji garoobay wuxuu ku dhamaanaa lateral lip of the bicipital groove of the humerus bicipital groove iyo intertubercular groove waa same isku mid macna marka wuxuu ku dhamaanaa groove kan ku dhamaanaa okay originkiisu waa saddex meel maxay kaliin saddex meel maxay kaliin pectoralis major sternum number 2 labo waxa leenahay upper 6 ribs okay saddex clavicle originkiisu insertionkiisu waa xagee intertubercular groove or ama bicipital groove okay bicipital groove originkiisu waa intaas marka hada pectoralis major m win okay pectoralis minor m yar pectoral minor xago kimid pectoralis major wuxuu kimid ribka saddexaad originkiisu waa xagee waa ribka saddexaad ribka afraad ilaa iyo ribka shanaad ay ku soo origi garooba okay marka maadaama pectoralis major iyo pectoralis minor waxa soo sareeyay pectoralis major soo sareeyay pectoral minor hoostiis oo ku jira maadaama hoostiis uu ku jiro waxaan ka dhigaynaa dhibic okay wuxuu ka imaanaa waxa ribka saddexaad okay ribka saddexaad ilaa iyo ribka shanaad 1 2 3 4
saddexdaani buu ka yimid soo maahan soo usoo socdo intuu ku dhamaaday coracoid process. Okay, coracoid process ayuu ku dhamaaday. Bacterialis minor wuxuu ka imaadaa originkiisu waa xagee o and insertion soo maahan o I. Bacterialis minor wuxuu ka yimid ribka saddexaad afraad shanaad insertionkiisu noo noqday coracoid process. Okay, coracoid process waxaa rabaa inaan kasii hadlo rhomboid major and rhomboid minor. Okay, macnaha p-dan waxaa kasoo gaabay hadda waxaa waa posterior surface of the of 3 points of these 3 points. This is the posterior surface of the vertebra, this is the posterior surface of the scapula, and this is the posterior surface of the humerus. Okay, marka posterior iyo anterior qaabka kala fahmaysaa scapulada waxaa ku kala fahmaysaa spine. Okay, this wuxuuna ahaa cashirkani hore wuxuu ahaa subscapular waxaa ahaa spine of the scapula. Okay, marka qofkii cashirka hore aan soo dhegeysan ama aan soo fahmin cashirkan waxay roo ku adkaanaya. Okay, rhomboid major iyo rhomboid minor xagee ka yimaadaan. Okay, rhomboid major aan ka bilaabo marka ama rhomboid minor. Okay, rhomboid minor aan ka bilaabeyna maadaama asiga uu koreeyo. Rhomboid minor wuxuu ka imaadaa C7 oo ah cervical vertebra. Okay, ilaa T1 fuuda soo maahan. Okay, okay, waa kana this waxa waaye rhomboid minor. Okay, waxaa jira rhomboid major asina. Rhomboid major wuxuu ka soo bilowdaa T2, T3, T4 and T5. Okay, okay, marka labadoodu xagee insertion ku sameeyeen waxay insertion ku sameeyeen medial border of the scapula. Okay, scapulada waxay lahayd medial border iyo lateral border. Okay, lateral border waxay xigtaa dhanka humeruska, medial border waxay soo xigtaa dhanka vertebraha. Marka labadoodu fiiri waxay insertion ku sameeyeen medial border of the scapula. Okay, rhomboid minor xaguu ka soo baxay asiga yar wuxuu ka soo baxay C7 iyo T1 oo originkiisa. Okay, rhomboid minor origin iyo insertion. Okay, rhomboid minor xaguu ka yimaaday wuxuu ka yimid C7 iyo T1. Okay, rhomboid okay, isla rhomboid minor xaguu insertionkiisa noqday medial border of the scapula. Okay, waxaa ku soo haray rhomboid major. Rhomboid major xaguu ka soo baxay origin iyo insertion. Okay, rhomboid major wuxuu ka soo baxay T2, T3, T4 macnaha thoracic waa soo thoracic 2, thoracic 3, thoracic 4, thoracic 5 ataba laakiin thoracic waa this thoracic ay wuxuu ka soo baxay thoracic labaad saddexaad afraad ilaa shanaad. Okay, T1 of and T2 up to T5 ay originkiisa noqday. Insertionkiisa wuxuu noqday meeshaan oo ah medial border of the scapula. Okay, teres major xaguu ka soo baxaa xaguu ku dhamaada, teres minor xaguu ka soo baxaa xaguu ku dhamaada. Okay, teres major wuxuu ka soo baxaa labada horta waxay ka soo baxaan lateral border ay ka soo baxaan. Inta waa medial border, intana waa lateral border. Borderkan inta waa lateral border. Okay, marka midkan lateral border ka soo baxay ee qaybta hoose. Okay, lateral border ayuu ka soo baxay gadaal marka hore ayuu maraa hore markuu maro wuxuu ku dhigaa bicipital groove. Okay, bicipital groove ayuu ku dhigay oo hore ku taalo. Okay, waxaa ku soo haray teres minor. Okay, teres minor is a teres major. Okay, teres minor wuxuu ka soo baxaa asigana upper
qaybta ka koraysa isla laakiin waa lateral border asna. Okay, wuxuuna ku dhamaadaa greater tubercle. Okay, teres major, teres minor. Teres major xaguu ka soo baxaa, teres minor xaguu ka soo baxaa. Marka sawirka fiiriso, teres major wuxuu ka soo baxaa lower third of the lateral border of the scapula. Teres minor xaguu ka soo baxaa upper 2/3 of the lateral border of the scapula. Okay, teres major wuxuu ka soo baxo lower third of the lateral border of the scapula. xaguu insertion ku sameynaa, wuxuu ku sameynayaa medial lip of the bicipital groove. Okay, teres minorna wuxuu ka soo baxaa anigana upper 2/3 of the lateral border of the scapula. xaguuna insertion ku sameynayaa, wuxuuna ku sameynayaa greater tuberosity of the humerus. waxaan ka hadlaynaa hadda reer spinatus iyo hal muscle oo aan ka maarmin oo soo raacayo oo loo yaqaano subscapularis muscle. Okay, reer spinatus waxaan kula qaybinay supraspinatus iyo infra. Okay, markaa fiiriso this picture wuxuu noqonayaa posterior surface of the scapula and humerus iyo anterior surface of the scapula iyo humerus. Okay, marka labadan dhinac way kala go-an yihiin. Okay, this is the anterior surface and this is the posterior surface. So mahan. Okay, posterior surface waxaan ku fahmayaa this waxa waaye spine of the scapula. So mahan. Okay, casharkeena aan kasoo hadlaynay aprilin pons scapula. Pons markaan kasoo hadlaynay pons waxaan ahnay wuxuu leeyahay fossa ayuu leeyahay scapula. waxay leedahay subscapular aan idhaahdee supraspinous fossa iyo infraspinous fossa soo mahan, iyo wuxuu kaloo leeyahay subscapular fossa. Okay, afar fossa. Fossa afraad wuxuunu ahaa galnoid fossa. Okay, marka galnoid fossa wax muruqa lagama helaayo, laakiin saddexdii fossa oo soo hartay ayaa waxaa laga helaa muruqo. Okay, this spine ahaa spine wuxuu ka qaybiyay supraspinous fossa iyo infraspinous fossa. marka muruq hadduu meeshaan fadhiisto ama hadduu muruqa meeshaan kasoo baxo, meeshaan muruq kasoo baxayo meeshaan. Okay, xaguu soo dhex marayaa. Okay, muruqaan oo meeshaan supraspinous fossa ku yaalo ayaa waxaa loo bixiyay supraspinatus muscle. Okay, supraspinatus muscle originkiisu wuxuu noqonayaa supraspinous fossa ayuu noqonayaa. markaas waxaa diya. Okay, markaas soo u socdo intuu kasoo dhex baxayaa, soo usoo socdo wuxuu ku dhigayaa greater tuberosity of the humerus. Okay, supraspinous fossa waxaa ku yaala muruqaas oo supraspinous fossa kasoo baxayo waxaa loo bixinaa supraspinatus muscle. And this supraspinatus muscle wuxuu insertion ku sameynayaa greater tuberosity of the humerus. Okay, okay, is the spineka hoostiisa waxaa ku yaala muruq kale. Okay, okay, muruqan wuxuu kasoo baxay infraspinous fossa ayuu kasoo baxay. muruq waxaa lagu magacaabaa infraspinatus muscle lena. Okay, infraspinatus muscle originkiisa waxa waaye infraspinatus fossa waa originkiisa. Okay, insertionkiisa wuxuu noqonaa greater tuberosity of the humerus. Okay, humerus waa kana, here is the head of the humerus, here is the neck. Okay, here is greater tuberosity and lesser tuberosity wuxuu jiraa qaybta anterior ku jiraa dhibcahaan u jeedo waa lesser tuberosity laakiin wuxuu jiraa anterior-ka. Okay, waa kana asigu hor soo jiro, waa isla anterior-ka ayuu jiraa. Okay, asigu hor soo jiro insha Allah taala waa arki doonaa. waa kana. Okay, this is the anterior, soomahan anterior surface. waa kana lesser tuberosity, this is the greater tuberosity. marka hadda sawirkii gadaal ayaa laga soo sawiray wuxuu noqonayaa anterior posterior surface of someone. This is a greater tuberosity
of the humorous ay insertion labadoodu ku sameynayaan. Okay, marka godkan saddexaad muxuu noo ahaa marka qaybta anteriorka soomahan anteriorkan godkiisa saddexaad waxaa fadhiisanaa muruq. Okay, muruqan oo inta fadhiyo oo loo yaqaano meeshaan godkan waxaa u naqaanay subscapular fossa u naqaanay, and this subscapular fossa waxaa kasoo baxaya muruq. Okay, muruqan soo u socdo. Okay, muruq ayaa kasoo baxaya. Okay, muruqan waxaa u bixinayaa waxaa loo bixinayaa subscapularis muscle. Okay, and subscapularis muscle wuxuu insertion ku sameynayaa lesser tuberosity of the humerus. Okay, lesser tuberosity. Okay, lesser tuberosity of the humerus. Okay, ayuu insertion ku sameynayaa. Okay, waxaa jirtaan dhahnay supraspinatus, infraspinatus iyo subscapularis. saddexda fossa ayay kasoo baxaan, waxay insertion ku sameeyaan labada oo waxa ahaa supra iyo infraspinatus waxay insertion ku sameeyaan greater tuberosity, laakiin subscapularis muscle oo kasoo baxo subscapular fossa asigna wuxuu insertion ku sameynayaa lesser tuberosity. Okay, si aan u fahanno murqihii saddexda waxaa kasoo qaadaynaa gacantan bidix u jeedo inay tahay scapula kasoo qaado. Okay, gacantan bidix for example waa scapula. Okay, marka scapula qaybtan waxaa kasoo qaadana inay tahay anterior surface, qaybtan waxaan kasoo qaadana inay tahay posterior surface. Okay, marka anterior surface of the scapula waxay saaran tahay feeraha soomahan, feeraha markaysan yihiin waxaan u saaran tahay. Okay, marka anterior surface of the scapula waa fossa ku yaalo. waxaa dhahnaa fossas waxaa loo yaqaanaa subscapular fossa, and this fossa haddii muruq oo fadhiisto waxaa leenahay subscapularis muscle. Okay, posterior surface afiirin marka this is a posterior surface. The posterior surface waxaa laba god ay ku taalo. godkan waxaa kala qaybiyo meeshan soo taagtaagan waxaa leenahay kaba soo qaad inay tahay spine of the scapula. Okay, spine of the scapula wuxuu ku qaybinayaa laba god oo kala ah supraspinous fossa iyo infraspinous fossa. Okay, supraspinous fossa hadduu muruq fuul waxaa leenahay supraspinatus muscle, hadduu infraspinous fossa hadduu muruq fuul waxaa leenahay infraspinatus muscle. Okay, sawirka aan ka fiirino waa anterior surface of the scapula, humerus, ulna iyo radius. Okay, marka waxaan rabaa inaan ka hadlo reer brachialis. reer brachialis waxaa u kala qaybinaa oo ah waxaa jirta reer saddex murqo oo qaata ereyga brachialis. waxay ka yihiin biceps brachialis, coraco brachialis iyo brachialis naftirkiisa oo gooni ah. Okay, this waxaa loo yaqaanaa brachialis dhihi macnaha brachialis oo isku dhamaato macnaha, laakiin this coraco brachialis. Okay, calaamad sarakan aad u fahanto this waxaa waaye brachialis bas. Okay, scapula marka ka hadlayna maxay tan muxuu ahaa this is a medial border. Okay, this is a lateral border. Okay, this is a colloid cavity. Okay, and colloid fossa. Okay, this waxaa noqonayaa acromion process. This waxaa noqonayaa coracoid process. Okay, this coracoid process. Okay, this muxuu noqonayaa marka this cavity waxaa hoos ku yaala tubercle, korkiisna waxaa ku yaala tubercle. Okay, marka waxaa leenahay tubercle-kii ka sareeyay colloid cavity iyo tubercle ka hooseeyay colloid cavity ama colloid fossa. Okay, marka magacaas waxaa leenahay okay supraglenoid tubercle. Okay, this is a supraglenoid tubercle. this na waxaa hooseeya soomahan waxaa leenahay maadaama hooseeyo infraglenoid tubercle. Okay, labada tubercle waa muhiim sababtoo ah murqaha dhow qabsanayaan markaan anatomy of the scapula pons ka sharxeynayna kamaan hadlin, laakiin hadda waxaa fahmaysaa waxaad ogaanaysaa in laba tubercle ay jirto. laba tubercle mid colloid ka sareeya colloid cavity ayuu ka sareeyaa, midna colloid cavity ayuu ka hooseeyaa. midka ka koreeya waa supraglenoid tubercle, midka ka hooseeya waa infraglenoid tubercle. Tama. Okay, marka waxaa rabaa inaan muruq saaro meeshaan. Okay, muruqa biceps brachialis allah. Okay, biceps waxaana hawaa laba madax ayuu leeyahay. Okay, laba madax ayuu leeyahay. Okay, long head macnaha madax dheer iyo short head madax gaaban. Okay,
long head xaguu ka yimaadaa short head xaguu ka yimaadaa long head wuxuu ka yimaadaa supragolnoid tubercle okay long head inta ka yimaada okay short head xaguu ka yimaadaa coracoid process of the scapula labada head waa isku darsamayaan okay marka isku darsamaan kadib waxaa sameysmaayo hal muruq weyn okay this muruqan dhexda ku yaala waayo okay okay wuxuu ka soo baxay mid short long head wuxuu ka soo baxay supragolnoid tubercle short head kana wuxuu ka soo baxay coracoid process of the scapula ayuu ka soo baxay okay labadooda xagee bay insertion ku sameeyaan macnaha may biceps brachii xaguu buu insertion ku sameeyaa wuxuu insertion ku sameeyaa tuberosity of the radius ama radial tuberosity macnaha radius waxay leeyahay markaa kasoo hadlay tuberosity ay leedahay mugta si usoo socdaan waxaa ku sameynaa inta radial tuberosity okay biceps brachii wuxuu leeyahay two heads maxay kala yihiin long head iyo short head long head wuxuu kasoo baxaa supragolnoid tubercle short head wuxuu kasoo baxaa coracoid process of the scapula okay marka long headka wuxuu soo dhexmarayaa bicipital groove okay ama magaca kale loo yaqaan waxaa waaye intertubercular groove macnaha inta wuxuu ahaa greater tubercle soomahan kan waxaa greater tubercle okay intan waxaa ku yaalo lesser tubercle okay dhexdooda waxaa maraya groove soomahan groovekan marka hadda kaaga sheekeynaa marka groovekan wuxuu ahaa labada tubercle ayuu ka dhexeeya waxaa dhehna intertubercular groove ayuu ahaa marka waxaa dhexmaraya long head of the bicipital ama biceps brachii ayaa dhexmaraya markaas waxaa u bixinay bicipital groove noo dhihi karnaa mafahamta marka meesha dhexmar kadib muscle-kii ayaa fibriskiisa sameysmaayo and that muscle waxaa u bixina biceps brachii and this muscle wuxuu insertion ku sameynayaa meel loo yaqaano radial tuberosity ayuu insertion ku sameynayaa iyo qayb kaloo insertion uu ku sameynaya ayaa jirto waxaa loo yaqaanaa aponeurosis into deep fascia of the forearm macnaha fascia ay leedahay forearmka hadhow markaa muscleska qaadanan ayaa sheegi doonaa ayuuna asigana insertion ku sameynaya laakiin ha ilowin radial tuberosity ayuu insertion ku sameeya ha ilowin macnaha meeshaan fascia ayaa ku yaalo fasciadaasna insertion ayuu ku sameeyaa waxaa rabaa hadda inaan kasii hadlo reer brachialis okay wuxuu ahaa coraco brachialis aan rabnaa inaan ka hadlo okay coraco brachialis magaciisa la ka fahmo macnaha coraco means coracoid process oo kasoo baxa okay colorkaas waxaa u qaadanaynaa madow u qaadanaynaa okay coraco brachialis wuxuu kasoo baxaa coracoid process this is a coracoid process soomaan ayuu kasoo baxaa okay coraco brachialis coracoid process ayuu kasoo baxaa this is a coraco brachialis okay waa muruq okay coraco brachialis markuu kasoo baxo intuu ku dhamaanaa wuxuu insertion ku sameynayaa medial aspect of the shaft of the humerus okay medial aspect of the shaft of the humerus okay this waxaa leenahay coraco brachialis coraco means coracoid process oo kasoo baxay wuxuuna ku dhamaaday medial shaft of the humerus ayuu ku dhamaaday okay waxaa noo soo haray brachialis muscle waxaa u ismaalinaa qarinka buluuga halka inta kasoo baxaa front lower half of the humerus ayuu kasoo baxaa okay markuu kasoo baxa kadib intuu ku dhamaanayaa okay this is the ulna soomahan ulna waxay noo lahayd coronoid process ay noo lahayd soomahan wuxuu ku dhamaanaya marka coronoid process of the ulna okay reer brachialis biceps coraco iyo brachialis okay biceps waa kasoo sheekeynay coraco maxaa dhahna coraco brachialis wuxuu kasoo baxaa coracoid process
wuxuuna ku dhamaanaa medial aspect of the shaft of the humerus. Okay, brachialis ku saara wuxuu ka soo baxaa lower medial shaft of the humerus ayuu ka soo baxaa wuxuuna ku dhamaadaa coronoid process of the ulna. cashirkii hore ee lafaha hadaadan aqoonin cashirkan uu ku adkaanaya nala xusto fadlan haddii aan ugu cusub tahay soo daawo cashirkii hore si ay kugu fudato murqaha. waxaan ka hadlaynaa hadda triceps muscle. Okay, triceps means haddaa ku sheeg biceps laba madax ayuu leeyahay haddaa ku dhaho bi means two. Okay, ceps laba madax ayuu leeyahay aan ku dhaha samahan haddaa triceps ku dhahana waa fahmi kartaayo saddex madax ayuu leeyahay. Okay, saddexda madax xagay ka soo baxaan. Okay, inta saddexda madax ka hadlayna horta sawirkan waa posterior surface of the scapula, humerus, ulna, radius. Okay, kood waa inaad sawir fahantaa then ayaa wax fahmi kartaa. Okay, sidee ku fahmi karaa inuu posterior yahay? waxaa ujeedaa scapula dadka badankooda ku wareegaan haddaba aragto this spine waa gadaal waa macnaha posterior surface of the scapula waa. Okay, marka triceps muscle xaguu ka soo baxaa. Okay, cashirka hadda waxaa soo aragnay in glenoid cavity hoos oo ku lahaa tubercle korna oo ku lahaa tubercle. Okay, kan kor muxuu ahaa supraglenoid tubercle haye kan hoosna muxuu ahaa sax infraglenoid tubercle waa. Okay, marka long head iyo short head waxaa kala qaybinaynaa long head, lateral head iyo medial head ayuu leeyahay tricepsiga. Okay, long head ka ka soo baxaa long head wuxuu ka soo baxaa infraglenoid tubercle ayuu ka soo baxaa intoo imaanaa. This is the long head. Okay, lateral head wuxuu ka soo baxaa upper half posterior surface of the shaft of the humerus. Okay, this is the posterior surface samahan upper wide half surface. Okay, intoo ka soo baxaa. Okay, this is a long head. Okay, kan waxaa lateral head LL. maxaa ku soo haray medial head samahan medial head wuxuu ka soo baxaa asigana lower half of posterior surface of the shaft of the humerus. Okay, asigana intoo ka soo baxaa labadan markay saan u dheer yihiin kana saan kana saas waa saddexda waa kana. Okay, marka isku maadan kadib waxaa sameeyaa muscle oo aad u qurux badan. Okay, muscle-kan waxaa ujeedaan oo aad u qurux badan xaguu insertion ku sameynayaa su-aasha marka. Okay, wuxuu insertion ku sameynayaa this waxanaha madow waxa waaye ulna soomahan ulna gadaal maxay ku lahayd process gadaal ku lahayd. Okay, hore processka ku lahayd wuxuu ahaa coronoid process laakiin gadaal waxay ku leedahay olecranon process oo hadhow galaayo humerus qaybteeda olecranon fossa. Okay, this olecranon process marka meeshaan insertion ku sameynaya markaas waxaa loo yaqaanaa triceps intoo ka soo baxaa xaguu ku dhamaada maadaama triceps uu leeyahay saddex madaxood maadaama uu leeyahay originkiisu waa saddex meelood. Okay, maxay kala yihiin infraglenoid tubercle I. Okay, labo waxay tahay lateral head kan wuxuu ka soo baxaa posterior shaft posterior oo ah qaybta upper half posterior surface of the shaft of the humerus. Okay, and medial head wuxuu ka soo baxaa lower half posterior surface of the shaft of the humerus. And this muscle ayaa noo samaysmaya oo ah triceps muscle wuxuuna insertion ku sameynayaa olecranon process of the ulna. And muscleska inta u fududaa waa soo dhigay marka waxaa rabaa wax yar oo ah muscles anaga maarmin sida deltoid, trapezius iyo latissimus dorsi ayaan rabaa inaan ka hadlo. marka deltoid xaguu ka soo baxaa, trapezius muscle xaguu ka soo baxaa, latissimus dorsi xagee ka soo baxaan, xageena ku dhamaadaan. intaas ayaa ugu muhiimsan. deltoid aan ka bilaabo. deltoid waa muruqa ugu muhiimsan marka laga hadlayo upper limbiska sababtoo ah waa muruq mar walbo loo jeedo waa kan. Okay, this deltoid muscle loo yaqaana. tamam, waxaa ku soo haray muruqa inta ku yaraa jiro muruqan oo weyn oo mar walba la arko waxaa loo yaqaanaa biceps brachii. This is biceps brachii. Okay, deltoid biceps brachii muruqan gadaal jiro wuxuu noqonaa
triceps. Okay, kuwa kalena dib ayay jiraan. Muruqan xawadka saaran waxaa waaye pectoralis major. Okay, muruqaha kale laakiin muruqaha kale hoostooda ayay ku jiraan, badanaa lama arko. Okay, waxaan rabaa inaan ka hadlo deltoid muscle. Okay, deltoid muscle xaguu ka soo baxaa, originkiisu waa xagee? Okay, deltoid iyo pectoral kala bixiyaa. Pectoralis major originkiisu muxuu ahaa? Sternum iyo lixdo ribs ee ugu sareyso iyo medial 2/3 of the clavicle. Samahan marka waxaa ahaa deltoid laak waxaa kasoo baxaa lateral 1/3. Lateral, this is lateral 1/3. Okay, this is deltoid. Okay, lateral 1/3 ayuu kasoo baxay. Okay, wuxuu kusoo darsaday acromion. Okay, acromion wuxuu kusoo darsaday acromion gadaashiisa maxaa jira macnaha? This is the hadduu acromion kan yahay gadaashiisa waxaa soo jiro infra, waxaa soo jiro waxaa ahaa spine of the scapula. Samahan marka fiiriya wuxuu aadaa gadaal u aadaa, gadaal ayuu aaday. gadaal markuu aado kadib haddana hore ayuu usoo baxayaa, wuxuu insertion ku sameynayaa meeshaan oo ah tuberosity, deltoid tuberosity. Okay, inta ayuu insertion ku sameeyay. Okay, this is deltoid. Okay, intuu kasoo baxay deltoid, hadda qaybta gadaal ee dhibcaha casaar oo ah kana macnaha. Okay, intan oo kale saas oo qabsaday hore ayuu aadaa moo, then qaybta saas oo usoo baxay wuxuu aaday deltoid tuberosity. Okay, intaan asaa qabsaday macnaha, intaan dhaxdan asaa qabsaday. Marka this is deltoid muscle. Okay, muuqana u jeedo deltoid muscle. Okay, originkiisu waa xagee? Originkiisu waa 3 meelood. Okay, clavicalka na qaybta anteriorka u jeedaa, qaybta posteriorka aragna marka. This is the clavicle. Samahan okay, marka fiiriya qaybta anteriorka waxaa rabnaa inaan inta ka aragno. Okay, lateral 1/3. Okay, okay, wuxuu soo qabsaday lateral 1/3 of the clavicle, wuxuu kala qabsaday acromion, wuxuu ka qabsaday spine of the scapula, laakiin wuxuu insertion ku sameeyay saddexda meelood oo kasoo baxay originkiisa, wuxuuna insertion ku sameeyay deltoid tuberosity. Okay, hymerskun ka soo sheegay waxa la tuberosity Soomaan. This is deltoid tuberosity in it. Okay, this waxaa loo yaqaanaa deltoid muscle. Waa muruqa badanaa dadka injectionka lagu sameeyo oo saan loo qabto. Trapezius muscle wuxuu ka yimaadaa kow occipital bone. Okay, okay ma saahan labo wuxuu kaloo kasoo jeedaa ligamentum nuchii oo la hayo. Okay, waa ligament waa waxaa loo yaqaanaa ligamentum nuchii ama nuki saa u taqaano. Okay, then wuxuu imaanaa all the cervical vertebra wuu kasoo boodaa except C7 oo haddana imaanaa. Okay, C7 ku dhigaa, C7 wuxuu kusoo dhogaa haddana originkiis lawaaya ilaa iyo haddana wuxuu ka imaadaa all thoracic vertebra. Okay, T1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, markuu intaan kasoo origin garoobo ayuu wuxuu sameynaa insertion. waa muruq ballaaran, aad u ballaaran waaye. meeqa wuxuu leeyahay insertion? wuxuu leeyahay lateral third of the clavicle. number 2 insertion ayuu ku sameynaa. labo wuxuu kaloo insertion ku sameynaa middle and the lower fibers. waxay insertion ku sameynaa acromion process. acromion iyo spine meel badan iskuma jiraanoo asina insertion ayuu ku sameynayaa. Okay, wuxuu insertion kusoo sameynayaa lateral. This is the clavicle Samahan. Lateral aspect of the clavicle. Okay, acromion. Okay, qaybta kore spine ayuu ku sameynaya.
Okay. Kan kale ayaan ku dhigayaa saad u fahanto wuxuu ka soo baxay occipital C7 ilaa T12, then wuxuu ku dhigay spineka ayuu insertion ku sameeyey, acromion kama reebin, lateral 1/3 kama reebin, meeshaas waa ka. Okay, waan tirtirayaa qaybtan dhexe asigaa dahaaray, asiga iyo daltoojkiisa waxuu qurxeen fiiri. Okay, waa ka asiga waa trapezius muscle. Okay, this maxaa waaye spine soo mahan of the scapular spine. Okay, scapular spine inta waxaa ka arkaysaa muruq. Muruqan muxuu ahaa infraspinous muscle soo mahan, infraspinous ama wuxuu ahaa infraspinatus muscle soo mahan kan. Okay, infraspinatus waa arkaysaa. waxaa kale inta ku arkaysaa teres minor, teres major iyo teres minor. Okay. Okay. Sawirkan waxaa ku daray iliac crest. Sababtoo ah latissimus dorsi aan rabaa inaan ka hadlo. Latissimus dorsi originkiisu waa xagee? Originkiisa number 2 wuxuu ka imaanayaa lower, kan waa T6 soo mahan, T6 ilaa iyo T6 la saddexda oo lixda T ee ugu hooseyso ilaa T2 alif asigaa la lambarka wuxuu kaga dhigayaa qaybta fasciaha. Okay, kadib wuxuu ku imaanayaa iliac crest, intan uu kusoo dhigayaa. intaasoo dhan waa originkiisa waaye aan yidhaahde. Originkiisa waa xagee? waa lower 6 thoracic vertebra, fascia of the lumbar ama lumbar fascia and iliac crest, then kor ayuu aadayaa. kor markuu aada inta ribkiisa ku yaala soo mahan, afarta rib ee inta ugu dambeyso ayuu ku dhigayaa. Okay, afarta rib ee ugu dambeysa ayuu ku dhigayaa. markuu ku dhigo wuxuu kusoo dhigayaa inferior angle of the wuxuu rabaa inuu ku dhigo inferior angle of the scapula ayuu qabsanayaa. intaas waa originkiisa. insertion xaguu ku sameynaya marka? insertion wuxuu ku sameynayaa humeruska. Okay, humeruska marka qaybtuu kaga sameynayaa, wuxuu humeruska kaga sameynayaa bicipital groove ama humeruska sidan uu ahaa. marka dalteedka wax yar. Okay, humeruska madaxeeda. Okay, this is greater tuberosity samayn. Okay, lesser tuberosity dib dhibca usmeeyna sababtoo hore ay jirtaa. bicipital groove xagga ayuu jiraa. marka soo u socdo gadaal ayuu marayaa. Okay, hore ayuu marayaa, then meeshan ayuu ku dhigayaa. Okay, okay, wuxuu ku dhigayaa waxaa bicipital groove ama intertubercular groove ayuu ku dhigayaa insertionkiisa. latissimus dorsi waa intaas. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna cashirkeena. waxaan rabaa inaan exercise ku diro oo ah waana soo sawiraysaa. sawir ahaan ayaan kaa rabaa inaad soo sawirto origin iyo insertionka uu leeyahay. laba murqood ayaan ku dirayaa. labada murqood waxay kala yihiin serratus anterior muscle iyo mid kaloo aad u fudud oo ah levator scapular muscle. Okay, serratus anterior muscle. Okay, waxaa ku dirayaa inaad number 2 inaad isoo ogaato origin and the insertion of labada murqood oo soo socda. Okay, serratus, okay, anterior muscle so ready iyo levator scapular muscle. Okay, labadaas muscle ayaa waxaan ka rabaa inaad soo ogaato
origin iyo insertionka iska soo qorna maahan commentiga qoraalka caadiga ah uu soo qorin waxaan ka rabaa inaad warqad yar aad soo qaadato aad muxuu ahaa aad ku sawirto on sawir la fahmi karo haddii rabto ahaato physiological picture haddii rabana ha ahaado anatomical picture try inaad samayso picture aad anatomy ku barato waad mahadsantihiin